kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijka qubanaha VOA oo si wada jir idin la socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga toddobaadkan qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shacabka Mareykanka u jeediyay khudbad uu ugu baaqayo midnimo isagoo dhanka kalena sheegay in waqtigu uu yahay kii Mareykanka cusub. This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. Soomaalida gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo aragtidooda ka dhiibtay khudbadii ugu horeysay ee madaxweyne Donald Trump. dhalinyarada Soomaali Mareykanka oo kulan ay ku yeesheen Virginia kaga dooday xal u helidda muslim nacaybka ka hortagga argagixisanimada iyo waliba faquuqa ay la kulmaan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA-da ee toddobaadkan. Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa shacabka Mareykanka u jeediyay khudbadiisii u horeysay ee sanadlaha ahayd isagoo ku baaqay midnimo dhexmarta dadka Mareykanka ah ee sida weyn ugu kala qaybsama siyaasadda. Trump ayaa dhinaca kalena ka hadlay horumar uu sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu ku tallaabsaday. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta noo haya. madaxweyne Trump qodobada ugu waaweyn ee uu culays ka saaray waxaa ka mid ah dhinaca shaqo abuurka isaga oo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badani dhacay. Since the election, we have created 2.4 million new jobs. ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2 milyan iyo 400 oo kun oo shaqooyin cusub kuwaas oo ay ku jiraan 200 oo kun oo dhinaca warshadaha. sanado badan oo gunooyinku ay fadhid ahaayeen waxaan hadda ugu dambeyntii arkaynaa mushaarkii oo kor u kacay. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha kobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah. This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American kani waa xilligeennii Mareykanka cusub ma jirin xilli ka fiican hadda oo lagu nooraan lahaa riyada Mareykanka. marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya meesha doonto joog meesha doonto ka imow waa xilligaagii. mar uu ka hadlayay dhinaca horumarinta iyo sida kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka oo aanan horumarin muddo helin ay caqabad ugu yihiin dhaqaalaha ayuu madaxweynuhu ka codsaday Koongareeska in ay la shaqeeyaan. Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least 1.5 trillion. waxaan Koongareeska ugu yeerayaa inay soo saaraan sharci keenaya maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku baxayso ugu yaraan 1 trilyan iyo bar dollar. dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale uu madaxweyne Trump ka hadlay isaga oo xusay 4 tiir oo lagu hagaajin karo siyaasad socdaal oo u wanaagsan ammaanka Mareykanka. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship. tiirka koobaad waa in jinsiyad la siiyo 1.8 milyan oo carruur ahaa oo waalidkood ay dalkan keeneen. ka labaad waa in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalka. tiirka saddexaadna waa in la joojiyo fiisiya waqtiyo nasiibka oo dadka lagu soo xulo xirfadooda. tiirka afraad waa in la isu keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo carruurta yaryar oo loo keeno dadkooda Mareykanka jooga. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay argagixisada gaar ahaan la dagaalanka kooxda ISIS. Last year, I also pledged that we would work with our allies to extinguish ISIS from the face of the earth. sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulafadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulafadeenna aan u sheego in ISIS laga xoreeyo 100% dhulkii ay ka haysteen Ciraaq iyo Syria. hase yeeshee ay shaqo badan harsan tahay. waana sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jibino. ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi oo intii uu madaxweynaha ahaa ay xiisad mararka qaar ay aflagaado gaartay ay dhexmartay isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un. North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland. We are waging a campaign of maximum pressure to prevent that from ever happening.
daba socodka mas'uuliyad darradu ku jirto ee kuuriyada waqooyi ee gantaalada nukleerka waxay soo gaari karaan dalkeenna waxaan wadnaa olole aan cadaadiska ugu badan ku saarayno dalkaasi si aan ugu hor istaagno intaasi ay ku guulaystaan dhinaca kalena soomaalida gobolka Minnesota degan ayaa ka mid ahaa malaayiin Maraykan ah oo si dhow u daawanayay khudbaddii Trump uu ka jeediyay aqalka Congress-ka. haddaba waryaheena Maxamuud Mascade ayaa goob ay Soomaalida Minneapolis ku daawanayeen khudbaddan tagay isagoo dadka weydiiyay sida ay u arkaan hadalkii Trump iyo weliba waxa uga baxay. halkani waa maqaayadda Capital Cafe oo ku taala bartamaha magaalada Minneapolis isla markaasina caawa isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo daawanayay khudbadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyay shacbiga Mareykanka. dadweynaha halkan isugu yimid oo intooda badan ay Soomaali ahaayeen ayaa waxa ay si aad iyo aad uga dhursugayeen khudbadda madaxweynaha iyo qodobada uu soo qaadi doono. haddaba khudbadda madaxweynaha kadib ayaan dadweynahaasi qaar ka mid ah makrofanka la dhex maray isla markaasina aan weydiiyay siday u arkeen hadalkii madaxweynaha. waa Cabdiraxmaan Mukhtaar waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka waxaan ka mid ahay gaar ahaan dadka u ololeeya ama ka shaqeeya arrimaha bulshada Soomaaliyeed. khudbaddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu caawa jeediyay run ahaantii aniga waxa iga baxay waxay ahayd waxa uu ekeyd qof weli ku jira ololihii doorashada ugu tartamay madaxweynenimo. khudbadu ma ekeen qof madaxweyne ah ama hal sano xilka soo hayay qaabku u hadlayay wax cusub oo soo kordhiyay oo maaragtay nuxur dheer ah ama dadkan anigu ka mid ahay ama maaragtay danyarta ah ama jaaliyadaha kala duwan bulshada kala duwan ee Mareykanka ee arrimo badan ay aad ku saameeyaan wadankan oo la filay inuu ka hadlo run ahaantii kamuuna hadlin. magacayga waa Maxamuud Dulyadayn waxaan ka mid ahay dadka reer Minnesota ee dhageysanayay khudbadii caawa uu soo jeediyay madaxweynaha Donald Trump ee the State of the Union. khudbadu waxay ila muuqatay caawa khudbo oo jidka ku sii xaaranaya gogol xaar u sii doorasho dambe inuu soo galo. khudbo ugu talagalay in qodobada hadda asaga hor yaallo ee uu doonayo in loo baasiyo ay sasabasho badan ku jirtay dhinaca dimuqraadiga uu iska gadaayay dadka Ameerikaanka ah dadka American people ayaga laftigooda uu iska gadaayay oo uu ka sabanayay waxay ku tusinaysaa inuu si degan u hadlayay waxa ku tusinaysaa inuu xoog saaray arrimaha asaga uu doonayo madaxweynahan iyo dinaha uu wato inuu fushado inuu mar walba isku dayay iyo wixii loo doortay oo ahaa America inuu ka dhigo tii hore. waxaan isleeyahay waxyaabaha laga filay waxay ahayd in dhaqaalaha Mareykanka khaasatan dadka qaxootiga ah uu wax ka bedeli doono sida uu xiriir fiican oo la sameeysan doono dawladaha kale sida Yurubiyaanka iyo Afrikaanka dadka soo galootiga ana sidii uu naxariis ugu sameyn lahaa intaba ka muuqan hadal soo dhaweynaya dadka soo galootiga iyo dhaqaalaha iyo dadka caalamka ku nool. magacayga waxa waaye Mahdi Cabdi fursad waxaan u helay maanta inaan dhageysto khudbadda madaxweynaha Mareykan. arrimo waxaa jira aniga aan si gaar ah dhagaha ugu taagayay oo aan rabay inaan la socdo sida waxbarashada sida foreign affairka iyo sida mataqaanaa dhaqaalaha wadanka. one of the thing oo maskaxdayda aniga aan weli xasuusto waxa waaye dhinaca waxbarashada madaxweynaha ugu horreyntiiba waagi hore wuxuu suubiyaba 9.2 million inuu ka suubiyey oo maanta ku andacoonayay waxbarashada waxbaan ku daray anigu taas labada hadal iskugu may qaban ma isgelin labada hadal. Donald Trump waa Donald Trump wax iska bedela ma jiro waa wuxuu sheegi jiray la ku hadlaa aniga taas aan u arkay aniga ma helin wax hob oo isbedel ma jirin inay soo ximaato maahane. dhalinyarada Soomaalida ee dalkan Mareykanka degan ayaa la kulma qaarkood cabsi la xiriirta nacaybka muslimka iyo waliba faquuq uga yimaada qaar ka mid ah bulshada ay la nool yihiin. haddaba waxaa lagu qabtay Virginia kulan ay dhalinyaradu uga doodeen sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimahaasi. Jacfar Kukaay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaariyay noonahay. waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey sii lixaadsaday muslim nacaybka iyo falalka takoorka ah ee ka dhanka ah dadka madow iyo muslimkaba. Soomaalidana qaybtooda ayay ka qaateen.
si arrintaasi laysaga waraysto sidii loo wajihi lahaana looga doodo ayaa ururka Somali Diaspora Youth waxa uu shirkiisii sanadlaha ahaa xagaagan ku qabtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaana ka soo qayb galay 10 dhalinyaro Soomaali ah oo gobolada kala duwan ee dalkan isaga kala yimid dhalinyarada ayaa u badnaa kuwa Mareykanka ku dhashay amaba ku koray oo aanan wax sida Soomaaliya ka garanaynin dadka ay la shaqeynayaan oo ajnabiga ah kaliya inay ku xiran yihiin ayagoo doonaya inay ama arrin Soomaaliyeed wax ka qabtaan ama Soomaaliyaba wax u qabtaan haddana wixii isku xiri lahaa marka waa muhiim in la helo platformskan oo kaleeto oo isku xirayo collaboration-kooda iyo wada shaqeyntooda mustaqbalka sii xoojinayo ujeedada laga lahaa shirkan ayaa ahayd in dhalinyarada lagu tartarsiiyo sidii labada dalba waa kii asalka ahaa iyo midka ay ku nool yihiin ay wax muuqda uga qabsan lahaayeen iyagana isugu xirmi lahaayeen maadaama ay ku kala nool yihiin gobollo qaarkood ku mannaan mayl isku jira in talentka ama aqoonta ama tayada dhalinyarada meeshan ku kortay wax ku baratay la isu keeno kadibna laga fikiro sidii xaggana wax uga qabsan lahaayeen dalkii hooyana ay dadaalkooda u gaari lahaa waa kulamada waxaan isleeyahay loo baahan yahay qurbaha in aad loo kordhiyo si xaggana wax soo saar badan looga helo wadankiina ma aragtay dadaal badan loo geliyo They are having issues at school where they're targeted, they're having issues by the police where they're targeted, and now when any situation goes around with terrorism, our men are being targeted. It's the fact that they are men of color and the fact that they are Muslims that it doubly Muslim nacaybka ayaa ku sii kordhaya qaybo badan oo dalkan ka mid ah mararka qaarna qofkii laga dareemo astaamo muslimnimo si toos ah ayaa loo bartilmaameedsadaa gabdhaha oo xijaabka lagu gartaba ha ugu badnaadeen qofkana waxaa hoos loogu dhigaa amaba sare loogu qaadaa diintiisa amaba midabkiisa kala sarreyn iyo isku amar ku taaglayn diin ku salaysan midab ku salaysan dhaqaale ku salaysan ayaa wadankan ka jira wadankani waa wadan kapitalista dadka waxa lagu gacan bidixin karaa oo lagu duudsiin karaa dhaqaale waxa lagu duudsiin karaa midabkooda dadka madow waynu garanaynaa iyo dadka Hispanics-ka iyo dadka natives-ka waxa lagu duudsiyaa diin maanta oo diintii muslimka lagu dhex khaldayo waxan cabsidaasi waxa ay keentay in Soomaalidu ay dhibkooda la aamusaan isla markaana aanay bannaanka soo dhigin xadgudubka lagu hayo si qumanna uga warramin farqiga u dhaxeeya argagixisanimada iyo muslimnimada waxaan isleeyahay in la taarget gareeyo ama fartana lagu fiiqo waxa keenaysa innaga oo aan isku hadal oo aan qadiyadaheena aad uga muujin masraxyada la isugu yimaado taasi waxay keentay siyaasi walba oo raba inuu cod helo inuu yiraahdo dhalinyarada Soomaalida ka hadlo ama iyaga lagu khaas yeelo falalkan guracaan ee munxarifka waxaa la sheegaa in 63% dadka Mareykanku aanay weligood la kulmin qof muslima halkana waxaa ka muuqatay in bulshada dalkani aanay aqoon ku filan ka haysan islaamka marka laga soo tago waxyaabaha ay dhici karto in aad looga badbadiyay ee ay warbaahinta ka helaan sideedana cabsi ama nacayb haddaad maqasho waxaa keena aqoon darro oo u nacab jacayl buu yidhi ninkii buga qore cawl aqoon darradu waxay keentaa laba arrimood qofkii inaad nacdid isla markaasina inaad jaajgaraysid inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee shirkii toddobaad ee ururka Somali Diaspora Youth lagu soo qaaday ay ka mid ahaayeen sidii xididada looga daweyn lahaa muslim nacaybka iyo argagixisada haddana iyaga kaliya loogama doodin shirkan dhalinyaradu waxa ay wax iska weydiiyeen xaaladda siyaasadeed midda horumarineed iyo tan nabadgelyo ee dalka Soomaaliya waa 7 colaad lagu saladay sulxna loo diidiyo waa 7 sokeeyii walaal soohdin loo dhigay waa 7 dadkii safaf noqdeen dunida saaray inkastoo dhalinyaradii munaasabadan isugu timid ay ka aradnaayeen ku hadalka iyo fahanka afka Soomaaliga haddana waxaa ka muuqatay niyad wanaag iyo wadan jacayl waxaanay ku hanweyn yihiin in waqtiga dhow ay wax ugu ku biiriyaan dalkoodii hooyo Jacfar Kukay VOA Alexandria Virginia dadka ku nool magaalada Flint ee gobolka Michigan ayaa weli shaki ka qaba isticmaalka biyaha tuubooyinka oo 2 sano ka hor la ogaaday inay sumoobeen mas'uuliyiinta ayaa dadka u sheegay in iminka biyaha nadiif ay yihiin lana isticmaali karo balse dadku weli cabsi ayay ka qabaan biyaha wariyaha VOA-da Anash Avitsian ayaa warbixintan Flint ka soo dirtay markastoo aan qubaysto nabarro ayaa iga soo yaaca Sincere Smith waa 4 jir wuxuuna muunadu noqday dhibaatada biyaha ee magaalada Flint waxaana nabarro u yeelay curyaha leedhka oo ku simoobay waxaana lagu soo sawiray
bogga hore ee majalada Times cinwaanku waxa uu odhanayaa magaalo Maraykana oo sumowday ku dhowaad 2 sano kadibna Ariana Hawk hooyada Sinclair ayaa sheegtay in biyaha dhalada ay u isticmaasho si ay carruurta ugu qubayso cuntadana ugu kariso. waa wax wanaagsan. 2 sano ayaa laga joogaa markii xaalad degdeg ah lagaga dhawaaqay magaalada Flint xilligaas oo biyaha laga soo talaalayay magaalada Detroit oo 100 kiiloomitir wax ka badan u jirta. Sanadkii 2017 gobolka Michigan ayaa sheegay in biyaha la cabi karo waa haddii filter la isticmaalo maadaama tuubooyinkii hore aan la bedelin, laakiin Ariana Hawk arrinkaasi kalsooni kuma qabto. Gudoomiye Snyder ayaa waxa uu leeyahay isticmaala biyahaasi maxaa yeelay biyuhu waa aamin, laakiin biyuhu aamin ma ahan. maalin walba xilliga shaqada kadib Hawk waxay baabuurkeeda ku tagtaa meesha biyaha lagu qaybiyo halkaas oo maamulka magaaladu uu dadka biyaha lacag la'aan ku siiyo. badi dadka reer Flint aamin kuma qabaan biyahaasi. dadka qaarkiis ma aaminayaan wax kasta oo xogaha cilmigu ay sheegaan. aniga tuubooyinka xitaa waa la iga bedelay, laakiin biyuhu weli sidii ayay u egyihiin. dumarka uurka leh iyo dadka da'doodu 21 sano ka hooseysa ee biyahan cabay ayaa hadda xaq u leh daryeel caafimaad kaas oo ay dawladdu bixinayso. ilaa haddase waxba lagama qaban karo waxyeeladii sumowgii curyaha leedhka. carruurta marka laga hadlayo waxaan ka cabsi qabnaa heerka garaadkooda oo hoos u dhaca, fudfudayd iyo garaadkooda aan kobcin. hase yeeshee cunto nafaqo leh, la talin iyo curyahan oo laga fogeeyo waxaad ka hortegi kartaa in wixii gaaray ay uga sii daraan. xilli dadka magaalada Flint ay helayaan kaalmo sida cuntada bacaysan, dawladdu waxay sii wadaa bedelidda tuubooyinka. arrintaasi oo ku timid dacwad uu gudbiyey xafiiska Natural Resource Defense Council iyadoo magaalada lagu ganaaxay $97 milyan. hadda waxaan ku jirnaa meelmarinta wixii lagu heshiiyey iyada oo weli ay wax badani ka harsan yihiin. haddana inta hadda la gaaray waa tallaabo horey loo qaaday oo fiican. sida aan rumaysanahay gobolka ayaa arrintani ku shaqo leh, waana inuu dadaal muujiyey si wax badan loo dhiso. dowladda federaaligu waa inay iyaduna ay ka fikirtaa sidii loo horumarin lahaa kaabiyaasha bulshooyinka oo dhan. arrintani waa inay noqotaa mashruuc qaran oo dhismaha kaabiyaasha ah. dhinaca kale dadka degan magaalada Flint waxay sii wadaan sidii biyo nadiif ah u heli lahaayeen. arrintan cadaalad uma aha muwaadiniinta, arrintan cadaalad uma aha carruurta. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka qubanaha ee VOA-da oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambena waxaanu idin leenahay nabadgelyo.